مشروعه injineeranka iminka ku magacaamar ama iminka dardargeliyay ayaanu doonaynaa inaanu halkan uga mahad celino shaqada uu qabtay iyo shaqada uu wali ku hawlan yahay waxa muuqata intii uu dhaqaajiyay injineer muxuu ahaa Buraale waxa ka muuqda in ay arintaasi tahay arin daacad uu ninkaasi ama injineerinkaasi oo shaqadaas aad iyo aad uga soo baxay mashruucu intuu dhaqaaqay waa intii uu isagu hawsha dhaqaajiyay weeyaan waxaan halkan isugu nimi sida ay sheegeen ragga iga horeeyaba inaan halkan u hambalyeeyno oo bogaadino magacaabista loo magacaabay injineer Buraale wadadii inuu noqdo madaxa mashruuca maamulaya runtii injineer Buraale waan reer Cergaaba aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan kaloo hambalyo u dirayaa madaxweynaha cusub ka horeeyay noo hirgeliyay noo dhagax dhigay Axmed Maxamed Silaanyo waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro haddii muddadii ugu horeysay wadadu bilaabantay loo magacaabi lahaa injineer Buraale waxaan isleeyahay maanta wada dhammaystiran oo qurux badan ayaa heli lahayd laakiin nasiibka ayaan hore u siin intii imika uu qabtayna wax badan buu muujiyay wada qurux badan oo hagaagsan oo la taaban karo wax qabad muuqda ayuu qabtay waxaanu halka u taaganahay oo maanta isugu nimid magaalada Ceelifin gudaheeda inaanu marka koowaad soo dhaweyno magacaabistii la magacaabay injineer Buraale wadada loo magacaabay madaxa mashruuca waxaan leenahay xilka lagu magacaabay marka koowaad Ilaahay kugu asturo baadka waxaanu aad u hambalyeeynaa oo soo dhaweynaynaa sida inta uu xilka qabtay wadadu say u dhaqaaqday ay u socoto iyo hagar la'aanta uu geliyay runtii qaabkay u socoto dhulka iyo shaqaalaha iyo dhinac kastaba runtii si aan caadi ahayn ma sha Allah bay u socotaa waxaan leenahay marka koowaad Ilaahay ku sahlo Ilaahay ku fududeeyo inaad dhamaystirto shaqada lagu magacaabay Allah kugu asturo si fiican bay u socotaa Ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inaad magaranaysaa inaad si laban laabkeeda iyo horumarkeeda inaad alla ku fududeeyo kugu ducaynaynaa cid kastoo wax qabatana waxaanu runtii alla leeyahay aanu leenahay de qofka wax muuqdaa waa muuqda qofka wax qabtaa qofka hadduu wax qabtana wuxuu mudan yahay in loo mahad cesho halkan waxaanu maanta mahad celin aan isugu nimi inaanu ka mahad celino mashruuca ka socda gobolka Sanaag ee wadada isku xira Cergaaba iyo Burco taa mahad waxaan uga celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka wasiirka gaadiidka iyo wadada Axmed oo mahad celinaynaa magacaabista loo soo magacaabay madaxa mashruuca Buraalena aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waayo waxaanu aragnay wax qabad la taaban karo oo muddadii yareed uu waday hawsha si ragalnimo leh oo xilkasnimo leh oo wadaniyeed ku jirto oo wadada la taaban karo quality-geeda iyo dardargelinta hawsha uu sida u dardargeliyay ayaa isugu kaaga keentay inaanu intaaba uga mahad celino Buraale wuxuu ahaa injineerkii koowaad ee 5 kiiloomitir ugu horeeya dhigay degmada Ceelifweyn mahad iskale ninka la yiraahdo Maxamed Cabdi Qorsheer Buraale oo madaxa isku xidhay wadada Cergaaba iyo Burco ninkaasoo mahadnaqiisu uu nagu kalifay intii ay wadadu uu gacanta ku hayay loo magacaabay injineer Buraale waxay moodaan inay ka duwan tahay shaqadeedu tii hore markii hore injineeradu hore ka shaqeynayeen waxaan u maleynayaa maanta hadii wadada hore uu gacanta uga hayn lahaa intii ay soconaysay waxay noqon lahayd maanta wadada dhammaystiran oo taama hadeerna waxa marqaatimo doona intii uu gacanta ku hayay sameynayay wadada waxa marqaatimo doona in ay kala muuqato maanta intii uu isagu ka shaqeynayay wadada hadeer loo magacaabay mashruuca uu hayay wargumbi ilaa fadhigaab way muuqataa intuu qabtay iyo intii hore